سيناي بيتك ولا لا دوب مايو ما لا دوغايو wiilka Allah u naxariisto dadkan shacabka ah waxa ay dul taagan yihiin meydka Allah u naxariistay wiil dhalinyaro ah oo kaamirmaan ahaa kaas oo daqiiqada ka hor duubayay dibadbixii ay ka dhigeen isgooska Siinaa ee magaalada Muqdisho laakiin askarta tirsan ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo halkaas marayay ayaa madaxa ka toogtay marka isaga laga tagana waxa jira dhaawacyo kale oo weerarkaas ka dhashay oo ay fuliyeen ciidan ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya haddaba ninkan oo ahaa kaamirmaan ka howlgalay magaalada Muqdisho oo si weyn magaalada looga yaqaanay waxa lagu magacaabayay Cali Wasiir waxa uu duubayay dibadbax ay muujinayeen dad shacab ah oo iskugu soo baxay isgooska Siinaa ee degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir waxaana la sheegayaa in dadkaas isku soo baxay oo markii hore ka cabanayay maamulka gobolka Banaadir in sidaas oo kale dibadbaxoodu isku bedelay mid taageero ugu muujinayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalintii shalay ahayd dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho waxa la sheegay in dibadbax oo markii hore cabasho ku saleysnaa dadkani ay u bedeleen sida la sheegay mid lagu taageerayo madaxweyne Farmaajo oo taageerayaal madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu leeyahay ayaa dibadbaxa ka soo dhex muuqday oo ku qeylinayay madaxweynaha iyo magaciisa sidaas daraadeed waxa la sheegay ciidan ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo halkaas marayay in iyagu markaasi dareenka dadkan ay muujinayeen ay ugu jawaabeen in rasaas ay furaan xabadii koowaad ay rideenna waxa ay madaxa ka haleeshay ninkan dhalinyarada ah oo lagu magacaabi jiray Cali Wasiir oo kaamirmaan ahaa si weyn caan uga ahaa markaas uga ah magaalada Muqdisho sidaas oo kale rasaasaas waxa ku dhaawacmay ilaa 3 ruux oo iyagana kamid ahaa dibadbaxayaasha banaanbaxaasi qaybta ka ahaa meydkiisa muddo ayuu wiilkan dhalinyarada ah yaalay inkastoo markii dambe halkaasi laga qaaday laakiin dadka shacabka ah waxa muuqata in ay markaasi muujinayaan dareenkooda ku aadan sida ay ugu xun yihiin in si bilaasha ninkan dhalinyarada ah markaasi ciidankan ay u toogtaan iyadoo ilaa haddana aan gacanta lagu hayn ciidankaasi halkaasi marayay ee rasaasta furay rasaastaasina geysatay qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira dadka qaar waxay muujinayaan in ciidankaasi ahaayeen ciidan militariga Soomaaliya ka tirsan oo halka marayay dibadbaxayaasha ayayna ugu talagaleen sida la sheegay in ay ku kala eriyaan maadaama halka ay marayeen muddo kooban oo markaasi u xirmay dibadbaxa dadka shacabka ay sameynayeen laakiin laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya xubno kamida oo aan la hadalnay waxay sheegeen in hadda baaritaan ay socdaan qorshuhuna yahay in gacanta lagu soo dhigo askarta dilka geysatay sidaas oo kale dhaawac geysatay oo ilaa hadda aan la aqoon waxay ahaayeen laakiin baaritaanna ayaa socda waxaana suuragal ah saacadaha soo aadan in hay'adaha amniga ee dowladda Soomaaliya askartaas ay soo bandhigaan wiilka dhalinyarada ah ee meydka ah waxyar kadib ayaa laga qaaday meydkiisa isgooska Siinaa laakiin wali isgooska Siinaa waxa ka muuqda saameynta dibadbaxyada kooban ee dadka shacabka ah ay sameynayeen ayaa halkaasi ka jira inkastoo dadkaasi ay wali dalbanayaan in ninkan dhalinyarada ah sida macna darrada ah loo dilay uu cadaalad helo